بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله dhamaantiin waxaan awood idin soo marinayaa salaan qalbiga ka soo go'day waxaan maaragtay aan rajeynayaa inaad wanaagsan tihiin dhamaantiin oo maaragtay aad ii faraxsan tihiin anigu alxamdulilaahi rabbil caalamiin aad baan wanaagsanahay caawa waxaan maaragtay aan idin soo diyaariyay program yar oo ku saabsan sida yacni foundationka maaragtay loo choose gareysto ama loo soo iibsado loo soo dooqo miyay ahayd ayaan maaragtay aan idin soo diyaariyay program la xiriira xagga foundationka sida saxda ah yacni ay tahay inaad usoo iibsatid ama usoo dooratid dhowr tib baan maaragtay aan soo diyaariyay dhowr qodob marka marka u horeysa waxaan rabaa inaan programmadan aan idin soo gudbiyo waxaan rajeynayaa inaad maaragtay aad xiiseysaan maaragtay inaad ka hesheen in maaragtay maxaa la odhanayay aad ka faa'iideen ayaan rajeynayaa waxaan usoo gudbinaya runtii waa inaad ka faa'iidaan faa'iidadana fadlan idinku ha isku koobine maaragtay walaaladiina asxaabtiina lasii share gareeya si iyaguna ay u ogaadaan maaragtay markastana ha iga ilaawina maaragtay videogayadeeda inaad suulasha taagtaan haddii aadan already subscribe aadan samayn banaanka casa taabatid ood subscribe ii samaysid intaasina waa iga codsi waayahay intaa waan ka gudbayaa waxaan u gudagalayaa programkii aan inoo soo diyaariyay miiska inoo saarnaa marka horeysa qodobka koowaad waxaa weeye sidee baad usoo choose gareysataa foundationka ama sidee ugu habboon ay tahay inaad foundationkaaga aada usoo dooratid markaad dukaankay tagtid dad waxaad arkaysaa markay soo rabaan inay iibsadaan foundation isku eegaya yacni halkaas bay ku baroobeeyaan meesha gacantaas ayay saa u mariyaan makeupkii ama waxay mariyaan halkan oo kaleeto maaragtay meelahaas bay mariyaan marka halkan soo ma jeedaan gacantaydaas iyo wejigu isku color ma ahan marka halkaas makeupkii aad ku egtay hadhowta halkaas dee kuma soo baxayo waayo makeupku gacantaada umaada rabin wejigaad u rabti markaad dooranaysid foundation waxaan idin sheegayaa waxaa la mariyaa halkaas ayaad marinaysaa soo ma jeedid halkaas ayaad marinaysaa waayo halkaas waxay u dhexaysaa wejigaagii iyo qoortaadii marka kalarka saxda ah saas baa lagu doortaa foundationkaaga kaasi waa tibtii koowaad tibta labaad baan u gudbayaa marka aad foundationkaaga aad soo dooranaysid waxaan maaragtay aan kugula talinayaa inaad meel nalalku ay ku badan yihiin aad ku baroobaysid ama maaragtay natural lightka kasoo garaya daaqadaha ama albaabka oo kale inaad ula dhawaatay muraayad intaad weydiisatid shaqaalaha meesha ka shaqeeya halkaa isku eeg baalkaaga marso maaragtay saas ayaa lagu ogaadaa yacni kalarkaaga saxda ah oo meeshii hadday meel mugdi xoogaa yara tahay dee ma ogaan karaysa sida uu sinkaaga ku noqonayo kaasi waa qodobkii labaad qodobka saddexaad waxaa weeye foundationkii markaad mid kugu soo dhow aad ka heshid yacni inaad dhaladii soo iibsatid already ma ahan meelo badanoo waxaa jira free sample bixiya sida maaragtay Sephora oo kale waxay ku siinayaan free maaragtay sample aad soo baroobeyn karaysid hal maalin ama laba maalin wax kugu filan ayay dhalo yar kugu shubayaan ama caagi yar gurigaaga la tegaysaa makeupkaagaad marsanaysaa subaxdii ama iskuul tag ama shaqo tag maalintii oo dhan waad is eegaysaa sida uu kugu yahay ilan baroobaad u socotaa aduu ma ogti maalintii labaad sidii oo kale makeupkii haddaad ka heshay uu maaragtay sinkaaga kusoo baxay dukaankaad ku noqonaysaa markaa waxaad soo iibsanaysaa dhaladaadii oo caadi ah ayaad soo gadanaysaa taasina waa tib dheeraada oo maaragtay aan idin siiyey dad badan aan ogeyn baa jira am sure laakiin saas waa saaad samayn karaysid markastana waxaa dhacda maaragtay hal kalar in skinkaaga uu yacni xoogaa uusan kusoo bixin qofku hadduu haara leeyahay haddii maaragtay meelo light yihiin meelo dark yihiin wajiga kalar uu yahay
yacni waxaa wanaagsan xitaa marmar baad laba shade aada isku walaaqi kartaa oo isku dari kartaa oo soo iibsan kartaa. taasina waa maaragtay waa tip maaragtay arrinka la xiriira. Okay, qodobkii waxaan u gudbayaa afraad. marka aad foundationka marsatid foundationku wuu isbedelaa saacad markuu makeupka kuu marsanaado 2 saac 3 saac 4 saac markuu makeupka wajigaaga marsanaado wuu isbedelayaa. marka waxay yidhaahdaan oxidize oo wixii isbedelayo kalarkoodii ka tagaya oo kalar kale noqonaya. sida marka aynu fruitka jarno oo kale appaleka maaragtay fruityada qaar markaad jartid mooska oo kale waad aragteen xoogaa wuu madoobaanayaa wuu isbedelayaa marka maaragtay dee oxygenka uu maaragtay uu taabto. makeupkiina waa sidii oo kale markuu half day kuu marsanaado 2 saac ama maalintii oo dhan wuu isbedelayaa. waxaa laga yaabaa 1 shade ama 2 shade inuu xoogaa makeupkaaga dhaarka u yaro noqdo ama orange ama wax adigu different tone uu kuu soo baxo. markii hore yacni okay buu kula ahaa laakiin markay maalintii aad sii gashid maaragtay makeupka wuu isbedelaa. marka tipsyo badan oo sidaas makeupku inuusan isbedelinna waan idin soo gudbin doonaa insha allah. kaas waxaan ka dhigayaa video kaleeto ayaan ka dhigi doonaa insha allahu tacaala. marka tipsku foundationka tipskiisu waa kaas. waxaan intaa idin raacinayaa in yaroo kooban oo ah markaad foundationka aad dooranaysid qof haddaad tahay wejigiisa uu clear yahay oo finan iyo maaragtay nabre iyo haare iyo waxba aadan lahayn waxaad soo iibsanaysaa maaragtay 3 shade buu u kala baxaa. waa light yani waxaan ka wadaa coverage 3 coverage ayuu u kala baxaa makeupku. mid waa light coverage, midna waa medium coverage, midna waa maaragtay waa full coverage. marka mediumka iyo light coverageka dadka maaragtay wejigoodu nadiif yahay oo finan iyo waxba lahayn especially waa dadka dry skinka ah ayuu maaragtay uu ku fiican yahay lightku iyo medium coverageku. dadka maaragtay finanka leh, dadka maaragtay haaraha leh, dadka wejigooda xoogaa kala midabka la kala yahay maaragtay kaasi waa full coverage. marka maadaama oon ka hadlay sida yacni saxda ay tahay foundationka in loo soo doorto ama loo soo choose garaysto intaana waan idinku darayaa si marka u horeysaba aad wixii oo sax ah aad soo iibsataan ood gurigiina la timaadaan. marka waa light coverage, medium iyo full coverage. intaas ayaan kusoo koobayaa programkan yar. marka waan sii wadi doonaa insha allahu tacaala intaan ku kulmi doono videogan mid lamid ah. waxaan idinkaga tegayaa salaanta islaamka oo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.